السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعن صاحبيال كسر بعض حبنت عيارها وأنا كجسوا قد بني جرانك بنادر إدق عبد العزيز ويجلبت كعيارين كوحة ورسيد يدكدا kooxaha dekada iyo horseed ayaa galabta isugu yimid ciyaar adag oo qayb ka ahayd wareegga labaad ee horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta ee Somali Premier League. kooxda dekada oo horyaalka hadda hogaaminaysa ayaa doonaysa in kulankan ay guul gaarto si ay u dheeraysato hoggaanka sare ee horyaalka heerka koowaad ee Somali Premier League. halka horseed oo iyana ku jirta kaalinta saddexaad ee rabtay in kulankan ay guul gaarto si ay u soo qabato kooxda dekada oo fadhisa kaalinta koowaad ee horyaalka Somali Premier League. labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar qurux badneed oo ay ku qanceen dhammaan taageerayaashii soo buux dhaafiyay garoonka Banaadir ee degmada Cabdicasiis. ugu dambeyn kun ciyaareed ka dhexmaray labada kooxood oo ahaa kulankii 15aad oo ay ka ciyaaraan horyaalka heerka koowaad ayaa ku soo dhamaaday barbaro 2-2 ah. natiijadan ayaa ka dhigan in kooxda dekada ay hadda wali hogaaminayso horyaalka heerka koowaad ee dalka. kooxda tababara Yu Cali ayaa hadda 15 ciyaarood horyaalkan ay ka ciyaartay waxay leedahay 32 dhibcood waxayna 4 dhibcood oo nadiif ah ka sareysaa labada kooxood ee Banaadir iyo Horseed oo wada leh min 28 dhibcood. horyaalka kooxaha heerka koowaad ee Somali Premier League ayaa hadda waxaa ka harsan 3 kulan. kooxda dekada ayaana u muuqata koox horyaalka mar kale difaacan karta inkastoo weli sheekada aysan kala cadeen maadaama ay daba ordayaan labada kooxood ee Banaadir iyo Horseed iyadoo weliba kooxda Banaadir ay u harsan tahay hal kulan maadaama ay ciyaartay 14 ciyaarood. dhinaca kale iyadoo ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliyeed ee da'doodu ay ka yartahay 17 sano dhawaan ay gaareen guul taariikhi ah maadaama ay soo gaareen heerka semifinalka ee tartanka Sakafa Cup ayaa arintan waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bahda isboortiga kuwaas oo guushan ku sheegay inay tahay guul farxadeed. dhinaca kale bahda isboortiga ayaa guul weyn u rajiyay ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliyeed ee dalkeena oo hadda soo gaaray heerka semifinalka ee tartanka xulalka bariga iyo bartamaha Afrika ee xidigaha da'doodu ay ka yartahay 17 sanadood. aad iyo aad ayuu qadcinayaan ciyaartooyda yaryarka ee 12 jiryaasha oo guul aad u fiican gaari maadaama waxaan u mahad celinayaa ciyaartooyda iyo macallimiinta ka soo shaqeeyay muddo badan ka soo shaqeeyay haddana aaminsanahay inay koobka qaadi doonaan si aan jeclahay sababtoo ah nimankaas ajiilada diilina waa ka ajiilad fiicannahay waa ka farsamo fiicannahay laakiin awood ay marka hore kooxaha seeraada baalka ee qaranka waaweyn waxay uga badiyaan baawar iyo weynan iyo xoog ay nooga badi jireen maahane xag farsamo mar walba Soomaaliya ayaa hay galaas ahayd oo fiicneed marka haddana waxaan rajeynayaa inay koobkaba ay qaadi doonaan saan jeclahay. horta Soomaaliya guusha ay gaartay guul la soo koobi kar maahan farxadeena aadan loo soo koobi karin. guushan aniga hadda 33 sano iyo 34 sano isboortu ku jira wali ma arkin Soomaaliya guushan ay keento waxay ugu soo reesay guushan amal ay keento ama lagu soo dhawaay Cameroon mar aan 2-2 la soo galnay laakiin waan arkay naadiga madbacada oo semifinalkan oo kala soo gaaray afar dhamaadkii 83 markii horyaalka ugu reeqaaday. kooxaha wadankeena hadda ka soo bixi doona labadaas kooxood oo Suudaan iyo Tanzania waxaan jecelnahay meesha aan shalay Kenya marin inay maraan aan jecelnahay hadii Ilaahay raa on sanadkan haddaan qaadi weyna kaalibad aan soo galno. anigoo ah Maxamed Xuseen Axmed Carabey oo ku magac dheer isla markaasna xogay naadiga Horseed waxaan aad iyo aad u hambaliyanayaa guusha ay gaareen adeer 17kii maadaama guul lagu faanay ay tahay mustawina aan ka dhicin inaan ku soo baxno 7 dhibcood waxaan aan filinayni waa ilmo yaryar ahayeen oo da'dooda aad iyo aad u yar tahay aan ka qayb gelin hal kulan ama adeer 17 ama barnaamij kale ama safar xataa dibadda ama kooxo qaadeen xataa inay ahayn oo koox ciyaartooy yar la soo aruurshay oo ka yimideen iskoolaadkii iyo bacadi laga soo aruurshay waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa macallimiintii iyo intii qayb ka qaadatay waa soo dhaweynaya waan hambaleynayaa horta mataqaanaa xiriirka Soomaaliyeed macallimiinta ciyaartooyda ummadda Soomaaliyeed guushaas la gaaray waxaan Ilaahay ka rajeynayaa insha Allah tacaala waxaan waa kubad cadi madow waaye maadaama u soo baxnay mataqaanaa heerka koowaad u soo baxnay waxaan filaynaa insha Allah tacaala sida hadda mataqaanaa ama aan ku arkayno ama aan ku maqlayno inay yani tahay nasi wanaag dadaalka ay dadaaleen muddada yareed hadda mataqaanaa kaliya ay tababarka badan muddo ay ku soo jireen laakiin xareentooda iyo mataqaan diyaar garowga oo iska yaraa waa u hambalyeynaa waxaan leeyahay hambaliyo maadaama ay qayb ka tahay aliyada isboorti ee dalka dabcan soo maray ka waran maxay soo xasuusinaysaa guushan ما شاء الله وحين soo xasuunaysa warigii muddooyi adduunkii barasamaadkii waagii sidoo kale qoladii juniorka ahaayoo kamid ahay Cafiifa ay ka ahaayeen ku soo baxeen ciyaar yani kama dambaysta ah mataqaana oo lagu qabtay istaadio Muqdisho Soomaaliya mataqaana Zanzibar nasiib wanaag in bareejo ahaan ayaan mataqaan taasna aan ku harnay maahane waxay ahayd yani ciyaar kama dambaysta ay ahayd
marka waayihii hore ciyaarihii noocii qaabka iyo siday tahay waa dadaalka yani mas'uuliyiinta dalka iyo mataqaanaa iyo wasaaradda iyo xiriirka guddiga Olympiga Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed mataqaanaa waxay sii gelinaysaa hididiilo iyo mataqaanaa inaan ka sii badino dadaalka hadda lagu jiro midaas mid ka badan insha Allah waxaan rajaynaa ilaahay idinkiisa inta ka dhimanna sidaan rajaynaa ciyaaraha inta hadda ka dhimanna inay noo keenaan guul bismillahir rahmaanir rahiim horta horeeto guusha uu gaaray xulka qaranka Soomaaliyeed oo ahaa under 17ka ciyaarihii bariga ee bartamaha Afrika oo Burundi hadda ka socdo waxay noqotay kooxda ugu dhibca badan shalayna guur taariikhi bay gaareen oo hal ewer uga badiyeen kooxda oo markii hore ka soo badisay nimanka martigelinaya Burundi Kenya ka badisay oo hal ewer ku badisay anagu farxad gaar bay noo tahay markii in kooxdeeni oo Soomaali matalaysay inay guushaas gaarto maanta 7 dhibcood ay ku fadhiso aan rajaynayno insha Allah inay maxal dhaay horumarkaas u sii socon doono maadaama aad tahay shakhsi isboorti hadda faalaha ku muuqanaya muxuu yahay waxaan taaganahay isma final waxaan la ciyaaraynaa mid kamid ah Tansaaniya iyo Suudaankii soo baxa marka ma muuqata in wiilasheenu ay guulo kala gaari karaan wallahi waa dardarayn insha Allah biidnillahi alkariim waa dardarayn guushaas aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa mid aan 2 sano u dambeysay aan ka shaqaynaynay idinka laftiina SNTV ahaan iyo raadi Muqdishoba qaybtiina ka qaadateen guushaasna waa guul qaran waa guul Soomaaliyeed aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in markii dhawaanahanba in markii ugu horeysay semifinal aan gaarno waliba aan 7 dhibcood aan ku soo baxno oo wax aad loogu faano insha Allah waxaan rajaynaynaa inay wiilasheen u gudbaan finalka hadii Ilaahay raado maadaama anaga aan qayb ka nahay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika tartankan uu yahay tartankii xulka bariga bartamaha Afrika guusha ciyaartooyda ay gaareen darajo ahaan Soomaaliya waxa u tahay Soomaaliya sida aad arkaysay website-ka xiriirka iyo FIFA waa soo hambaliyay wax weyn ay tahay sababtoo ah inkastoo 17 jirada ay da' yar yihiin haddana maadaama FIFA go'aansatay in hoos laga soo bilaabo kubadda cagta 100% ay wax ka bedelaysaa guud ahaan kubadda cagta Soomaaliya moralka dadka iyo dhammaan ciyaartooyda kooxdaba iyo xiriirkaba xubinta ciyaaraha intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa intayna mar kale kulmi doono nabadgelyo